kulankan u soo diyaariyay xafiiska maareynta khatarta iyo musiibooyinka ee deegaanka Soomaalida ayna ka soo qayb galeen xafiisyada ay bahwadaagta yihiin iyo hay'adaha aan dawliga ahayn. Kulankan oo ujeedkiisu ahayd dhageysiga warbixinta qorshihii 6 bilood ee la soo dhaafay ee xaaladaha bini'aadanimada ka jirta deegaanka iyo soo jeedinta qorshaha u diyaargarowga xaaladaha degdega ee deegaanka ka dhici kara iyo sidii loo ogaan lahaa baahiyaha dhinacyada biyaha, caafimaadka, waxbarashada, cunnada iyo waxyaabaha looga baahan karayo in lagaga jawaabo xaaladaha degdega ah, taasoo ugu dambeyntiina lagu soo saari doono nidaamyo lagu dhaqan xilliyada ay jiraan xaaladaha degdega ah. Nuxurka uu kulankani xambaarsan yahay ayaa waxa aan ka wareysanay wasiir xogeenka xafiiska maareynta khatarta iyo musiibooyinka deegaanka Mudane Saadiq Cabdiqaadir Khaliif. Kulankan maanta aan halkan ku haynay wuxuu ahaa kulan 6 biloodba mar la qabto, ujeedadiisuna ay tahay in la diyaariyo qorshaha xaaladaha degdega ee aadanimada deegaanka ka dhaco sidii miisaaniyad contingency ee loogu raadin lahaa looguna diyaar garoobi lahaa. Marka sanadka bilowgiisii 2020 ayaa waxaa la diyaariyay qorshahan EBRB planka kadib 6 bilood markuu active ahaado dib baa loo revise gareeyaa, xaaladaha soo kordhay waxbaa lagu daraa oo lagu darsaa. Marka maadaama xaaladan la baranin oo bini'aadantinimo ay deegaankeena ku soo kordhay qaybo ka mid ah gaar ahaan gobolada ay webiyada maraan daadad xilligoodii aan jiri jirin ay hadda da'ayaan ay hadda baxeen daadadkaas oo saameyn badan oo naf iyo maalba la geystay. Sidoo kale gobolada qaar abaaraha ka jiro oo biyo dhaan iyo oon bay u baahan yihiin. Marka waa xaalad iska hor imanayso. Qorshahan waxaa loogu talagalay documenti living document la yiraahdo, documenti jirayo mashaariicda iyo waxyaalaha ay qabanayaan hay'adaha bahwadaagta nala iyo dawladaba dhammaan sektarada wax kastoo bini'aadamka noloshiisa saameyn ku leh. qorshe weyn oo noocaas oo la diyaariyay sanadka bilowgiisii baa dib hadda loo revise gareynaya. Waa la isla eegayaa meelaha la isla yahay in laga bedelo waxa ku soo kordhay sida xilligii la diyaarinay covid ma jirin hadda oo kale xilli in covidkii laftigiisa iyo qorshayaashii yaray haraan covidka loo diyaariyay hadda laftigiisa documentigan lagu daro. Marka si guud waa qorsho naga caawinayo in lagaga jawaabo xaaladda degdega ee bini'aadanimo deegaanka jirto contingency maaha xaaladaha caadiga ah. Waa in case hadduu wax ka duwan wixii jiri jiray habnololeedka uu imaado xaaladan la filaynin. Marka qorshahan wuxuu ahaa marka mid la saadaaliyo dhammaan waxyaabaha la isleeyahay saameynta nolosha bini'aadamka si toos ah si dadban buu saameyn doonaa.